بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني دروس رمضانية وحلقة ديني شنات. حلقة التنوحان كجهل دونا آدابتا يسدوك للسنوين كسونك أوليه. sunnooyinka soonka uu leeyahay waxaa ka mid ah suxuur ayaa ka mid ah walaalayaal, in qofku uu suxuurto. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka. nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam suxuurta maxaa yeelay suxuurta waxaa ku sugan barako. marka waxaa muhiima in muxuu ahaa sayna inoo seegin barakada iyo khayrka, waxaa muhiim inaynu suxuurta ku dadaalno. wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi akalatu saxari ow kama qaala sala allahu calayhi wasalam. muxuu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam soonkayn iyo soonka ahlu kitaabka waxa inoo dhexeeya waa suxuurta. marka halkaas waxaa la rabaa inaynu ku khilaafno ahlu kitaabka, inaynu khilaafno oo aynu suxuurano ayaa la rabaa oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu qaadano. waa sunno, hase yeeshee sunno muhiim ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray walaalayaal. marka dadka qaar waxay ku leeyihiin suxuurtu waa iska sunno, marka maadaama sunno ay tahay wax dhibaato ma laho waa isaga tagi karaa. ficlan waa sax, laakiin waxaa muhiima in nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii la qaato oo la raaco, aad bay muhiim u tahay. haddana waxaa sidoo kale nabigu uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam suxuurta waxaa ku sugan barako. barakadaas iyo qiimahaas ayaa marka muxuu ahaa ku seegi doona walaal. sidoo kale nabiga xadiis kale wuxuu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala al-mutasaxirin. ilaahay iyo malaa'iktiisa waxay u duceynayaan dadka suxuurta. marka u fiirso walaal, waxaa ku seegaya malaa'igta ilaahay ducadooda iyo baryadooda oo ilaahay ay ku baryayso dadka suxuurta ilaahay u baryayso. haddaadnan ka mid noqonin kuwa marka muxuu ah suxuurta, waxaa ku seegi doonta baryadaas malaa'igta ku seegaysa. marka sidaysan baryada malaa'igta aysan ku seegin, qof walba muslim waxaa muhiim inuu soo tooso uu suxuurto. soo kale aadaabta waxaa ka mid ah in muxuu ahaa suxuurta la dib mariyo oo muxuu ahaa habeenka muxuu ahaa qaybtiisa dambe in la suxuurto. dadka qaar waxay sameynayaan wuxuu soo toosayaa habeen barki 8 saac habeennimo iyo yaa laga yaabaa inuu soo tooso inuu cuno iyo seexanayaa. markaas waxaa dhacaysa isagoo sunno u soo toosay wuxuu ka tagayaa waajibaadkii salaadii subaxiga ahayd oo waajibka ahayd uu ka tagayaa. arrinta ayada waa falxum walaalayaal. waxaa muhiima inaynu sunnadana aynu qaadano, waajibaadkan aan laga tagin waa muhiim. taa marka waxay ku suuragali kartaa kaliya in habeenka aakhirkiis dam la soo kaco. marka suxuurta waxa laga hadlaya ama tasaxurka waxaa la radaa habeenka aakhirkiis 10 saac iyo meelaha qofka inuu suxuurto. markii uu suxuurto qofka isla kolkii waxaa u sahlan intuu weysa qaado inuu masaajidku uu soo dugto. laakiin taa habeen barkii soo tooso aad cunto oo istiraahid muxuu ahaa wax yar aad seexatid, waxaa laga yaabaa in waajibka uu ka tago, hadhowna aakhira muxuu ahaa dambi weyn ayaad ku dhacaysaa. waxaa ka mid ah sunnooyinka soonka uu leeyahay, waxaa ka mid ah in afurka la dedejiyo yaa ka mid ah. in muxuu ahaa kol haddii la hubsado in qoraxdii ay dhacdo in afurkii la dedejiyo iyadana waa sunno. nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfidr. nabiga wuxuu leeyahay salaam dadka khayr kama zuulayaan ilaa intii afurka ay dedejinayaan. marka waxaa muhiim inaynu afurka aynu dedejino, suxuurtan la dib mariyo, waana hadigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. sidoo kale waxaa ka mid ah sunnooyinka soonka waxaa ka mid ah in muxuu ahaa qofka uu afuro inta uusan salaada maqribka uusan dukanin ka hor inuu afuro. dadka qaar waxaa laga yaabaa waxay ku leeyihiin salaaduu boobsiinaya, markaasuu le salaaduu gala, markaasuu le cuntadii iyo wixii afurkii dib marsanaya. arrinta ayadaana ma aha wax nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii ah oo nabiga laga soo gaaray maaha walaalayaal. waxaa muhiim nabigeena wuxuu calayhi salaatu wasalaam markii uu afuro muxuu ahaa markaa kadib ayuu salaada u dukan jiray. marka waxaa la rabaa arrintan inay nabiga ku dayno calayhi salaatu wasalaam
oo muxuu ahaa inagu hawadeen in iska raacin waxaa ka mid soo kale sunooyinka uu leeyahay soonka waxaa ka mid in muxuu ahaa qofka ilaahay uu bariyo oo muxuu ahaa uu ku dadaalo ilaahay baryadiis aad bay muhiim u tahay nabiga calaysalaam wuxuu sheegay saddex ducadooda saddex baryadooda ilaahay subxaana watacaala ma soo celiyo waxaa ka mid wa dacwatu saa'im qofka sooman baryadiisa ilaahay subxaana watacaala ma soo celiyo marka waxaa muhiim inaynu cajsiga iyo caajiska inaynu iska dayno maxaa yeele nabiga xadiis kale wuxuu ku yiri calayhi salaam acjazu nnaasi man cajaza can ducaa dadka waxaa ugu caajisan kuwa ilaahay baryadiisa ka caajisa markaasaa dadka uga caajisan marka waxaan rabaa walaalayaal inaynu baryada ilaahay oo ilaahay inaynu barino inaynu ka caajisin waliba bisha barakeysan ramadaanka ee qofka sooman ducadiisu mustajaabu dac uu yahay oo baryadiisii la aqbalayo waxaa muhiim inaynu ku dadaalno ilaahay baryadiisa inaynu ku dadaalno ilaahay aad loo baryo sidoo kale sunnooyinka soonka waxaa ka mid in muxuu ah qofka markii uu dhargo ee uu afuro inuu akhristo ducadii nabiga uu akhrisan jiray nabiga muxuu dhihi jiray nabiga markii uu afuro wuxuu dhihi jiray dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah saasuu dhihi jiray oonkina waa uu tagay xididadiina waa ay qoyeen ajirkan wuu sugnaa saasuu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa muhiim innagana markaynu afurno oo arsaaqada ilaahay xalaasha uu nasiiyay aynu cunno oo xididada ay qoyaan oo oonkii uu inaga tago oo ajirkiina insha Allah uu inoo sugnaado oo waajibaadka ilaahay inuu gudano waxaa muhiim ah inaynu marka ilaahay barino oo nabiga wax uu sameyn jiray aynu sameeyno waa muhiim marka aadaabta iyo sunnooyinka bisha barakeysan ee ramadaanka ay leedahay aad ay u farbadan yihiin hase yeeshee intaas ayaan darsigeena ku soo koobaynaa wajazaakumullahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh